sanad guurada 16aad ee xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka ayaa si weyn loogu maamusay ismaamulka Diridhaba oo sanadkani martigelisay gaar ahaan dugsiga sare ee Ugaas Xasan. Kooxaha dhaqanka ee qoomiyadaha ayaana munaasabadani muunad gaar ahaaneed u yeelayay. Hable iyo wiilal ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka oo ay ka muuqato haybadii iyo sharaftii Soomaalinimo ayaa si aad uga muuqanayay madal ay kulmisay boqolaal qof oo isaga kala yimid 12 deegaan oo ka kooban yahay dalku. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar oo ay weheliyaan madaxweyne ku xigeenka deegaanka Mudane Ibrahim Usmaan Faarax iyo mas'uuliyiin kale oo heer deegaan ah ayaa ka qayb galay munaasabadani halka dhinaca federaalkana ay ka socdeen mas'uuliyiin sare oo ay ka mid tahay madaxweynaha dalku. Kulankani waxa faahfaahin dheeraad ah naga siiyay wasiirka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ka qayb galay xuska 16aad ee maalinka qoomiyadaha, maalinka shucuubta dalka. munaasabada lagu qabanayay magaalada Diridhaba dabcan waxaan qayb ka ahayn wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweynaha waxa weeyo maalin weyn qoomiyadaha dalka ku weyn waa maalin aad garanayso ahmiyadda ay leedahay waa maalin midnimada iyo jiritaanka dalka ay la xaqiijiyay waa maalin aad garanayso federalismka inuu horay soconayo dadka ku fikirayo in federalismku uu baabaayo waxa xaqiiq ah in inta isbedelka uu dhacay kadib uu hogaaminayay Prime Minister Abiy Ahmed in dalku ku soo biiray labada deegaan oo deegaanka Sidaama iyo deegaanka Koonfur Galbeed ee dalka dabcan waa maalin in la weyniyo ay tahay waa maalin horumar leh waa maalin isdhaxgal leh waa maalin midnimo iyo wadajir dalka u horseedayso sida aad la socotaan dalkan waxa weeyo dad aan rabin horumarkiisa dad aan rabin in talada dalka wareegta ay noqoto haday iyagu ay gacanta ku haynin u arkahayo rabo in ay la dumiyo dalka sida aad arkayseen dagaalada ka socdo Canfarta Amara Kilil oo iyagu intay deegaankoodii ka soo baxeen ay sii wadaan dagaaladaas dalkan waa dal soo jiray waa dal sii jiri doono talada dalkana waxa weeyo 27 sano ee dalka la soo waday waa mid inaga markii aan ku soo laabto dhaqankeena dhibaato gabadfal kufsi dil dhaac iyo barakicin lagu sameeyay shacabka Soomaalida waxa weeyo waa mid ay marnaba suurta galaynin inay ku soo laabtaan ka taliyaan ka arramiyaan waa riyo maalmeed weytaas waxaan ka wada wadankan intuu isbedel ka dhacay waxaad aragtaan deegaankeena kaliya marka tusaale soo qaadato haday noqoto hogaaminta heer dal qaabka looga qayb galay deegaankeena dadka u dhashay ay uga qayb galeen hadaad aragto horumarka qudhigiisa ka socdo deegaanka ama laamiyada ama maamul magaalooyinka qudhigooda oo jijiga iyo qabridaha iyo goday iyo markaad fiiriso ka socdo annaga ka Soomaali ahaan ka deegaan ahaan ka mas'uuliyad ahaan waxa weeye mid aan taageersanahay isbedelkan sii wadayno sii difaacayno weeyaan ciidamada qaranka ee dalka ay kala duwan ciidamada qaranka ee heer qaran kuwa deegaanada ee liyu boolisiyada maleeshiyaadka ururada kale ee bulshada qaybaheeda kala duwan qurba joogta xaqiiqadii waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo fursadan maxaa la jira dahabiga aan uga faa'iideysto in dalkaada qiimkiisa iyo jiritaankiisa aad difaacdana waxa weeye waa mid waxa weeyo wadiinadii ay ku farayso waa mid aan cidna looga gabanaynin weeye faragelinta dibadda iyo gudahana waxa weeyo mid waxa weeyo aan marnaba aan ku raali gelinaynin talada dalka in dad kale ay wadaan waxaad arkaysaa ciidamada say waxa weeyo difaaca qaranka say u yihiin maxaa la jiray ugu heelan yihiin in dalkooda iyo dadkooda ay difaacaan kuwa deegaanadana sidaas oo kale weey maalinkan hadaan ku soo laabto waa maalin inaga waxa weeye guul inoo ah waa maalin horumar inoo ah waa maalinkii dastuurka dalkan waxa weeye salka loo dhigay ragii ka qayb qaatay ba maanta diidan Hiddaar 29keeda waa maalin dhidibada loo aasay qodob loogu yeeray sinaanshiyaha qoomiyadaha oo ku suntan dastuurka dalka hase yeeshee ururkii argagixisada ee TPLF muddadii ay talada dalka hayeen aan u dhaqangelin sidii loogu talagalay maadaama awoodii ay ku koobeen 4 xisbi oo ka mid ahaa kuwaasi oo fulinaya rabitaankooda oo kaliya maanta shucuubaha dalka ayaa ka marakacaya isbedel hogaamineed oo sida ay tahay u dhaqangeliya dastuurka